بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan rabaa inaan ka hadlo dhacdooyinka maalmahan ugu dambeeyay uu ku sugan yahay maamulka Khaatumo oo madaxweynihii iyo wafdi uu wato ay Djibouti joogaan heshiisyo kullay codadkoodii ay banaanka u soo baxeen ay ka muuqdaan. waxaan markaa rabaa warbaahinta inaan hadda halkan uga bandhigo anigoo maamulka la soo shaqeeyay ilaa waqtigii ugu horeysay la yagleelay ilaa iyo waqtigan oo aan xilba ka haynin muddo dheerna wasiirka warfaafinta ka ahaa inaan si cad dadka reer Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed ba wacday maamulkaanu kalsoonidii inaan kala noqday wax kalsooni oo uu hayaa ma la shaqeynayna habeeraati aanay jirin dadka reer Khaatumona aan ugu baaqayo waqtiga ugu macquulsan ee Ilaahay abaarahan iyo dhibaatada idin ka saaro inaad hoggaan siyaasadeed oo idin matala oo rabitaankiina ka tarjumay inaad samaysataan oo doorataan. waxa hadalka ay geeysiiyay ama gaarsiiyay waxa weeye maamulka Khaatumo waa maamul loo dhisay mabaadi' qeexan wuxuu leeyahay dastuur wuxuu leeyahay golayaal maaha wax qof uu sidoo doono u rogi karo mana aha inaan ixtiraamka iyo xurmada qofnimo ka qaadayo Dr. Khalif Galeed. xikmadda meesha ku jirta waxa weeye waxaa loo dhisay maamulka Khaatumo waxaa loo dhisay in halkaas uu ka samaysmo maamul ka madax bannaan maamulada Puntland iyo Somaliland oo labadooduba dhib isku mid ah ku haya dadka reer Khaatumo. ma garanayaan goor Somalilandna ay kalgacal badan inaga samaysatay Puntlandna ay dad u noqotay waana hadalkii madaxweynuhu uu yiri Axmed Siilaanyo waa madaxweynaha maamulka Somaliland wuxuu ballan ku qaaday dadkan inuu dhaxal uga tago legacy. waxaan u malaynayaa oo aanan madaxweynaha Khaatumo ee aan anigu wax ka doortay aanan ka qarinayn Axmed Siilaanyo wuxuu calooshiisa ku jiray rabitaankiisa ahaa dhaxalkiisii dadkani waa hayaan intii la dili karayay waa la dilay waa la barakiciyay oo kaakuma iyo xagar dheer bay ka buuxaan dadkii muxtaramka ahaa ee madaxda dhaqanka ahaa ee ganacsatada ahaa ee dhakhaatiirta ahaa guryahoodii waa bannaan yihiin anu halkaa wax hadhay garan maayo haddaan dadka qaar la doonayn in la cuno ma garanayo halkaa ku hadhay halkaa wax ka hadhay ma garanayo. marka waxaan leeyahay khudbadda madaxweynuhu uu ka jeediyay Djibouti shacabka Khaatumo ma qancin wata sababtay anu inaan kalsoonida kala noqday in badan oo ila ra'yiina ay wadada qaadayso. waxaan leeyahay oo xusid mudan dastuurka Khaatumo waa ku qorneed wada xaajood kasta madaxweynuhu inuu gali karo ama cid u wakiilan karo laakiin wada xaajoodka macnihiisu ma aha isku biirid ma aha sida hadda waxa muuqata meesha kalgacal dheeraada dadka reer Khaatumona kaamay ogeyn. waxaan ugu baaqayaa aan bannaankaba ka ahaadee talada dadkii ehelkeeda ahaa ee awalba wada maamuleyseen madaxweynuhu kula soo noqo talada Cali Ciise Cabdi iyo Cali Xaaji Ciga lala dhinac marayo anu cid loo geynayo ma garanayo odayaashii dhaqankuna ay bannaanka ka taagan yihiin dad taladooda ku midaysan weeye waxaad wada hadlaysaan. mar rabo sida aan wax u wada dareemayo dadka inaan u gaarsiiyo waxaan jeclahay inaan ku gaabsado anu inaan maamulka kalsoonidiina kala noqday baaqa aan siin karaana waxa weeye haddii wax uun la cayminayo talada dadkeeda ha lagu soo celiyo hoobaala wanaagsan laba qof oo saaxiib ah mid ku dhamaan karta ma waa ognahay 71dii labada oday inay wasiiradii xukuumadii Maxamed Siyaad Barre ahaayeen ilaa haddana wadiifada iyo sheekada ka dhaxaysa ay wanaagsan tahayba laakiin dhibka dadka ka jira inta waa ka badan yahay. sidaa daraaddeed waxaan leeyahay arrintan ha loo tala badsado ha laga noqdo ma jirto meel dadka reer Khaatumo mabda'oodii ahaa inay midnimada Soomaaliya ka mid yihiin ay kaga tanaasuleen. magacu waa Khaatumo State of Somalia waa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo gooraan nacayb Soomaali u muujin karnaa ma jirto qarnigii horena annaga midnimada muujinayno u dhimanayni walla shukri cala alwaajib waa ku adkaysanayna waa ku mahadinayaa Ilaahay inay dadkaasi yihiin dad adkaysan ka leedile people of resilience yihiin way ahaan doonaan Ilaahay idankii wayna guuleysanayaan oo dadka qofka jidka cad taagan baa guuleysanaya.
annagu kama talaasuleyno midnimadii haddaan mabda iyo waxa runtaa laga wada hadlina lama heshiin karo waxbana la iskuma darsan karo dadka waqooyi galbeed iyo tog dheer qayb ka mid ah degani ma ka tanaasuleen Soomaali baan ka go'nay hadday arrintu saa tahay reer Khaatumo diyaar bay u yihiin inay tanaasulaan oo laga sadbadsado oo caruurteedii oo cuntay unaan ka soo qaadno ama dhibaato noo geysatay laakiin intay taageen Soomaali baan ka cararayna waxay geystaanna waa u qoran yihiin waana loo adkeysanayaa qofkii ku biiraana ilaa 19 maalinba qof weyn oo hebel leeyahay waa tagay dhulkuna ka guuri maayo dadkuna raaci maayo intaan ogahay waa inta hadii Allah wada ogolaado intaas baan ugu baaqayaa dadka reer Khaatumo inay taladooda siyaasiga dib isugu la noqdaan aad iyo aad baan idin salaamay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh